حقيقي ما أنت فرحت قارع يتهاي ما ملاهي سنكرتت قف إذا كمل أنا ما قرن كرو حالة أنا صومري حنونك ولا له Somaliland ee doorashooyinkooda dhowr habeen waa u soo jeeday anigoo ka fikirayo halkee ka bixisaa yaad kala tashataa yaa kula furdaamin kara xanuun badan soo jeed badan alxamdulilah maanta waxaan ku faraxsanahay labada hogaamiye gudoomiye cabdi xaashi iyo walaalkay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi iyagoo maanta gacmaha haysto inay halkan igu casuumaan ina tusaan inay diyaar u yihiin inay u qabtaan Somaliland doorasho hal dardaaran rabaa intaan hilmaamay inaan ku darsado walaalayaasha Somaliland insha Allah haddii dowladda soo socotay dhalato fadlan ku dadaala inaa habraac samaysataan oo hadda kadib laga soo faa'iideeyo xaq maahan in qolo kastoo cusub markay timaadaan dowlad kastoo cusub lagu wareero oo la yiraahdo maxaynu sameynaa ma geeskaana ula baxnaa ma dhinacaana la aadiyaa tashta bisha ugu horeysa labada bilood ugu horeysa saddexda bilood ugu horeysa nidaamkaas la imaada kaasna ku dhaqma markay timaado 4 sano kadib haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala idin sidaan hore u ballan qaaday haddana hortiina ka ballan qaadayaa Somaliland masiirkeeda doorashada iyada xor ah waxaan uga dambaynayaa labada gudoomiye iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka inay tashtaan sida ay rabaan ila yimaadaan anigana diyaar ayaan u ahay inaan gacan ku siiyo garabna ku siiyo inay soo diyaarsadaan odayaashooda oo ila yimaadaan inay soo diyaarsadaan goobta lagu qabanayo inay ila yimaadaan siday rabaan amnigooda hadda waxaa ila socdo taliyaha booliiska oo aniga aan soo watay rabana hortiin inaan ka caddeeyo cid kastoo aad rabtiin oo aad ku kalsoon tihiin oo booliiska ka tirsan iyo Amazon iyo cid aad rabtiinba diyaar ayay idiin tahay waxaan diyaar u ahay in halaqa riwaayada iyo dawacooyinka geesaha ka taagan adin ka celiyo habraaciina raaca nidaamkiina raaca cid idin soo fargelin karto insha Allah ma jirto waxaan rabaa inaad isku tashataan oo isku yeerataan oo tala midaysan aad yeelataan kadibna anigana diyaar ayaan idin lahay inaan idin garab istaago har iyo habeenna diyaar ayaan u ahay inaan hawshiina sida ugu dhaqsiyaha badan u dhameeyo soo diyaar garooba gudoomiye cabdi xaashi waa ku mahadsan tahay aan iscafino malkan meeshaan waxaa ku qoran kuran iscafisa adeerkay gudoomiyeyga aqalka sare raada ragaadin looma raaco cafis ayaan ku weydiistay xildhibaanada labada aqal iyagana cafis ayaan weydiistay insha Allah waxba nagama ba'ayaan ayaan diyaar garoobno horena aan u soconno haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo waa in idin garab taaganahay xaaladda dalka hadda uu ku sugan yahay insha Allah way sahlanaanaysaa wax kastoo adagna fudayda ku dhamaadaan soo maaha insha Allah niyadiina khayr u sheega waa fududaanayaan horaan loo soconayaa cid istaagaysa ma lahan waxaan kaloo rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka walaalaha horteeda fadhiya inaan u caddeeyo kursiga mas'uuliyadda idinkaan loo dhiibto shacabkaan loo dhiibto shacabkaan u khidmaynaa shacabka cid ka sarreysa ma lahan cid kursiga ku dhalatay oo ku dhimanayso ma jirto idinkaa idin shaqaynaa qof kastoo siyaasi ah oo mustaqbal kale dalkaana waxaan u sheegayaa inuu u hoggaansamo baahida shacabka ayaan u shaqaynaa cid shacabka awooddeeda si qaldan ugu tagrifali kartana ma jirto horaa loo soconayaa shacabkana way tashteen wayna tashan doonaan shacabkana waa xor intaas inaad la socotaana rabaa insha Allah wixii
soo taagnaa way dhammaanayaan horaa loo soconayaa hadda hawsha iigu horreyso aan qabanayo oo aan u diyaar garoobayo waa arrinta doorashada Somaliland oo igu horreyso aqalka sare soo diyaar garooba hadday daahdo idinkaa daahiyey hadday soo dhaqsato idinkaa soo dedejiyey idinkaa idin sugaya idinkaa idinku xiranahay la imaada jadwalkiina wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh